guryo un sii burburaya un dad un sii kala yaacaya un magaalo un dhammaanteed markaad soo gasho lagu odhanaya hebelle hebelaayu furay kana kabuu furay gabadh waliba 4 carruura jiidayso idan haddaynu rabno inaynu jiri karno waayo nin qurina carruur ma korin karo siiba marka halkan la joogo qof dumaroo qurina carruur ma korin karto ma suurtagalaha qof ilaahay badbaadiyey waa gaar awowgaa ducadiisa ay ku dhacday laakiin intaad halkan timi baan keliga 5 ciyaalo wadaya ama 7 ciyaalo wadaya anaa ku filaanaya washaka aan jirin salaanina kuma filaan karto odayna kuma iyagoo wada jira ma ku filaan karaan baa su-aasha isweydiinta ah iyagoo wada jooga labaduba oo aan midna maqnayn ma ku filaan karaan baa isweydiinta leh idan haddaynu rabno halkan markaynu joogno inaynu jirro kow waa inaynu guryaha ilaalinaa iyo inay dhisnaadaan intaynu isku celin karna isku celina intaynu isu dulqaadan karna isu dulqaadana intaynu dhexdhexaadin karna dhexdhexaadin karna waa inaynu masaajideenna ilaashanaa midaynaa wadaagnaa dhisannaa waa inaynu madaaristeenna yeelannaa kuwa qur-aan dhiga iyo schooling systemba waxaynu diiday inaynu schooling system yeelanno inaynu yeelanno waxaa laga yaabaa in dadka qaar is yidhaahdaan dee waxaasi asheekh samayn karaya oo dadku waa riyoonaya maya qur-aanka ilaahay wuxuu leeyay laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha wax kastoo ilaahay samadaa ka soo dejiyey waa wax bini aadam awoodo adoo miyaad bini aadamka ka baxsanta laakiin haddii xooggaaga lagu tusi waayo waxba noqon maysid qur-aanka ilaahay wuxuu ka warramayaa aadane tuka wax baray bini aadamka iyo tuka iyoma xoog weyn kee xoog badan qof bini aadam iyo tuke shimbirta tukaha ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa in aadankii intuu walaalkii dilaa calaacalayo leh acajastu an akuuna midla hada alguraabi fawaariya sawata akhi balma waxaan ka liitaa buu yidhi tukaha kan oo walaalkay aqoon darra ku dhacday aanu aqoonin sida wax loo aaso dabeetana tukaa macallin u noqday haddii awooddaada lagu tusi waayo tukaha macallin buu noqonaya laakiin ciidanayda kama awood badna maanta waxaa laga yaabaa ingiriiska inay ku degantiin 100,000 200,000 400,000 yani 100,000 oo qof oo minkum bixiyaa waa imise waa 100 milyan 100 milyan waxay iskuul uga baahan tihiin ingiriiska oo dhan ba idin dhisi lahay laakiin marka kala daadsanaataan you are nothing waxba noqon maysid tamari ma jirayso idan waxaan leenahay laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha wax kastoo alla ina faray waa waxaynu awoodno ee innagaa moodayna inaynan awoodaynin haddiiba si ay dhacdo meelaha qaar meel cidlaa intaad tagtay meelaha inaad joogi kari weydo suurtoobi weydo markaana shay kaleo diinta ka mid ah waajib noqonaya oo ilaahay wuxuu yidhi waman yuhaajir fii sabiili illaahi yajid fi lardi muraaqaman kaiira wasaca innaka lan tadacu nabiguna wuxuu leeyahay alayhi salaatu wasalaam shay ilaahay dartii ugama tagtid ilaa ilaahay wax kaaga khayr badan buu kuugu bedelaya inaad dee markaa meesha ka gurtaan baa waajib noqonaysa soo diinta kuma idaan arag hijro waxa la yidhaahdo iyo in la hijroodo haddaad noolaan kari weydo noloshu waa diintaad iyo waxaagaad haysan kari weydo waxaa waajib noqonaysa markaa dee bixista marka waa laba miduun inaad dee leediin shandadaha noo xidhxidhana waa baxaynaa iyo inaad wax qabsanaysaan oo dad diintooda iyo dhaqankooda iyo afkooda iyo waxoodaba ilaashanay noqotaan sala allahu calaa muxamedin wala ali Please subscribe my channel. Please subscribe my channel. Channelka aad daawanaysaan waa Fatale Official. Fadlan haddaa ku cusub tahay channelka subscribe saar, videona like saar. Like-taada iyo subscribe-taada waxay inoo tahay dhiirigelin weyn. Waxaan u dhownahay 10,000 subscribe. Please